فإذا الله هذا حديثك حنبارسين وحوي وحوت المامية حولها عامك وحق در لغو قاتو إني كخطر سيهين حولها خاصك حولها ددوينها حولها الدولة حولها خزنة الدولة حولها مجتمع حولها أمة إن حق در لغو قاتاي وكخطر سنتهي حول الشخص إليه هنا القادة حول ضد كوبان إليه هنا قاتان هنا القادة وكخطر سنت محايلو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحيدي مرضي أمال انتي خيبر قاتي حق درده كو قاتي انتان لقيبنين أيان نار هل عيسو كوركيسو كو هل عيسو النبي صلى الله عليه وسلم ننكي كان يوحي يرشراق يركع كان حق درده كو قاتي النبي يقول شراك من نار يا والنار أتكو هل عيسو تكو قبن له سومارت هيا ريسن صوبت وحوي حولها ددوينها وحا كو تعلق حقوق آدو فربضا ملايين تاس يبقى لال كاكون أي حقوق كله وحوله هذه هدات شيلين ككبته حق دركو كبته ما ننت قيامنا ملايين تا ميشهد جين لهذا قرنيه ساس دراديد بان النبي قال صلوات ربي وسلام على الرماء ادو قد جيري حولها عامك ان اسك الاليو لغا فوغادو حتى اسك دافه دون iyo irbad ninkii ka qaatay maalinta qiyaamada waa keenaya isagoo xambaarsan waxa sugan nabigeena sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari nin la yiraahdo ibn lutbiya oo dawladda shaqaalaheeda kamid ah ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u diray inuu zakada ka soo ururiyo dadka sakadii uu soo ururinayo dawladdu u dirtay ayaa dadweynuhu markuu u tago ayaa waxay lahaayeen qaybtana waa zakadii oo nabiga gaarsiiyay qaybtana adiga socda yaan hadiyad kaaga dhignay xoolihii isagoo waduu keenay markuu nabiga u keenay buu xoolihii kala qaybiyay wuxuu yiri intana nabiga idinka iska leh waa sakadii iyo sadaqadii intana ana la iisoo hadiyeeyo daana iska leh nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minbarku fuulay dadku khudba u jeediyay wuxuu ku yiri maxay yihiin shaqaale aanu dirsanayno hawl aanu u dirayno kadibna iimaanaya dhahaya intana idinkaale intana ana la iisoo hadiyay guriga hooyadii aabihii muu fadhiisto oo fiiriyo bal in wax la siiyo oo loo hadiyeeyo macnaha ma fahanteen hadiyadani waxay ku timid kursiga hadiyadani waxay ku timid magaca dawladda hadiyadani waxay ku timid wadiifada iyo shaqada uu dawladda u hayo dawladda dirsatay bilaash lagu ma siinin hadduu guriga hooyadii iyo aabihii iska joogi lahaana koob shaaha looma shubeen xoolahani maxaa keenay kursigana yaa iskale ummadda iskale ma hooyadii iyo aabihii baa uga dhintay sidaas daraadeed xoolihii nooca aha nabigu waa ka qaaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ka tag baa leeyahay meesha fadhiiso bal in xoolo lagu siiyo arag yaa wax ku hadiyeynaya miskiin baa tabanaanka taagan saas daraadeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadaaya al-ummal ghulul shaqaalaha dawladda wasiirada madaxweynaha baarlamaanka gudoomiyaasha shaqaalaha dawladda wixii hadiyad loo siiyo waa khayaano buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حتى هدية بناك أوجتب صوبت معيتها هي هدية وحل لوجو كينا يوا كرسية هدو كرسية كذا عم قاعد إسكا صوفر يستكوب شاه وشو الميزان أنتو سن كرسية فولينا وبناك تشوجين شاه لما سينين مالك كرسية فولي به هدية دوه كوب اللودين أو لوجو ضلضلي يا إسكاله هدية داس كرسية إسكاله ومدة إسكاله شعبك إسكاله كرسية عدي إسكاله با إسكاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة ضد إسكاله شعبك إسكاله أدوك مليد النبي صلى الله عليه وسلم مركاسا وحوير حديثك الصحيحة نكاسي مركو قابك أولها الله وحوكويري إلهي بان كتنارتين نفتيدوك عندي ساكو جرتين متكيني كقات حولها النوع عاسا وحكم ذا هيا رتابنات maalinta qiyaamada ayuu keeni doonaa ama la iimaan doonaa asagoo xambaarsan ninkii neef geela qaatay hal ololaysa asagoo dusha ka saarantoo fadeexaysan buu maalinta qiyaamada iimaanaya
ninkii neef adhiya qaatay riciyaysa iyadoo korka ka saarantay maalinta qiyaamada imaanaya ninkii lacag iyo xoolo urursaday isagoo sida oo kartoomadii iyo muxuu ahayd dusha ka sidu imaanaya maalinta qiyaamada adinkoo xambaarsan baad imaan doontaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacanta kor u taagay oo uu yidhi allahumma hal ballaqtu allow ma gaadhsiiyey xoolaha caamka ah waa halis waana midda maanta la xalaashaday khaasadii baa xalaashaday caamadii baa xalaashaday kuraastan lagu ordayo laaluushka lagu guranayo xoolaha dadweynaha lagu qaadanayo laga taajirayo xageed geli doontaan asagoo miskiin ah oo faqiir ah oo dariiqyada taagtaagan ayuu kursi loo dhiibayaa maalmo kadib bila kadib sanado kadib qusuur buu dhisanayaa guryo dheerdheer waa taajir waa hantiile war xagee buu ka keenay xagee xoolahani kaga soo daateen xoolihii dadweyne oo la dhacay waxaa la yaab leh caamada iska dhaafay khaasada kii wadaad la dhihi jiray kursiga markuu fuulo caamada kama sokeey yaa jamaaca war yaa xalaaleeyey war yaa fasaxay war soo aakhara ma jirto war soo ilaahay loo tegi maayo war soo adoo qaawan hor istaagi maysid war xuquuqda intaa la eg marka maalinta qiyaamada lagu soo istaajiyo adoo qaawan waxaad isku furatan aan haysan malaayiintaasi xuquuqdooda xageed ka geli doontaa mise inaadan dhimanaynin baad rumaysan tahay war zaynul caabidiin dhimay oo qadaafi dhimay oo sadaam dhimay oo cali ibn saalax dhimay oo fulaan tag oo jabaabiradii tage oo adiguna waa tagi doontaa kursigaad ku fadhidana waad ka dhaqaaqi doontaa wax alla waxaad ka kasabtay oo dhanna ayagoo taagan baad ka dhaqaaqi doontaa ittaqillaah aakhiradaada u tur qabrigaaga u tur ilaahay baad hor istaagi doontaa u tur dadweynaha xoolaha halabsanaya ee iyaga laftoodu moodaya inay iska bannaan yihiin xoolaha caamka war waa halis waa martac wakhiima wey ittaqullaah xoolahan la iska xalaashaday hantidan la iska xalaashaday masaalixdan la iska xalaashaday wax loo rogmanayo wey ilaahay ka baqa oo aakhiradiina ilaashada